maalin maalmaha ka mida ayaa hooyadiis oo gaalaha wuxuu ugu yeeray diinta islaamka markaasay nabiga aflagaadaysay sala allahu calayhi wasalam nabigay cays abu hurayra waa soo tegey nabigu u yimid sala allahu calayhi wasalam isagoo abu hurayra iska ooyaya nabigu wuxuu ku yidhi maxaa kaa ooyeysiinahaya abu hurayraw wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow ducada hooyaday aan u ducaynayo oo aan ugu yeerayo islaamnimada waan kari waayey wayna iga diiday maanta ayaan is idhi khayr hooyo u sheeg adiga ayayna ku aflagaadays ee ilaahay u bari hooyada inuu ilaahay soo hanuuniyo rasuulka ilaahayow markaas ayuu nabigu u duceeyey sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam abu hurayra yidhi gurigiiyaan aaday markaan gurigii aaday albaabku waaba soo laaban yahayba waxaan maqlay buu yidhi shanqar biyo qof ku dhex qubaysanaysa guriga shanqartii ilaa waa hooyadiisa oo ducadii nebi maxamed inta ku dhacday hooyo yaa ducadii nebi maxamed intay ku dhacday sala allahu calayhi wasalam ayaa ilaahay qalbigeedu nuur geliyey hooyo markaasi waxay soo labisatay dharkeedii waxayna ku tidhi soo gal markaan soo galayay hooyo waxay tidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh rasuulkiiyaan dib ugu laabtay sala allahu calayhi wasalam uu yidhi anigoo farax la ooyaaya sidii saacadda ka horba aan la ooyaayey tiraanyo iyo murug waxaan ku yidhi rasuul allow bishaarayso ducadaada ilaahay waa ajiibay abu hurayra hooyadiisana ilaahay waa soo hanuuniyey allahu akbar